intaan arday soo arkayay arday ka duwan ayaan maanta la kulmay runtii iyadoo loo diyaar garoobayo imtixaanaadka shahaadiga ah ee ka qabsoomi doona guud ahaan dalka oo dhan ayaa halkan waxa kulan ay kula qaateen mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska Soomaaliland ardayda sanadkan gali doonta imtixaanaadka kuwaasi oo fariimo wacyigelin ah ay siiyeen dhammaan ardaydan ayaa ahaa gobolka Maroodijeex caasimadda Hargeysa waxaana munaasabadan ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska Soomaaliland gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada barsaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay waxa aanu faahfaahiyay imtixaanaadka iyo waxyaabaha looga baahan yahay ardayga waxay farxad gelisay sida qiimaha badan leh ee uga qayb qaadateen xafladda qiimaha badan leh annaguna xafiiskii imtixaanaadka haddaan nahay farxad baa aad iyo aad noo gashay iyo naxariis fara badan inaan weliba aad iyo aad idinla saa'irno sababtoo ah waxaa ii muuqda ifafaalo fiican arday wanaagsan oo akhlaaq leh oo runtii aad moodo yacni inay u diyaar yihiin inay mataqaanaa mustaqbalkooda dhowraan waxaan rabaa oo keliya markaa maanta waa dardaaran iyo duco كل وحي متقانا هذا كبديدي سا أجاسبها جودية وزيركا يقولون إن لا تشوفوا ورد دونهم تي وحكرون تي آدي أبو ما تقيا وزيركا وسارة وحبرشنا وسير الدولة أجاسبها جود أجاسب واحد يلا أصلا نذكرهم تي متقانا سي آدي أبو قيم بدن وعي جلنتا عردنا نقول قيم قاطي وحفيز أول حفيز كامتحانات كأنت بدن ay ku koobnaan jirtay laakiin sanadkan wasaaraddu aad bay uga qayb qaadatay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maroodijeex gudoomiyaha degmada Hargeysa ee wasaaradda waxbarashada agaasimaha waaxda waxbarashada dugsiyada sare barsaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxa aanay la dardaarmeen ardayda u fadhiisan doonta imtixaanaadka shahaadiga maanta waxa faani ah oo ii ah markaa farxad in aan halkan soo taago gobolkii Maroodijeex ee ugu ballaadhaan gobollada Soomaaliland saacadda wasiir iyo gudoomiye inay hortiina fadhiyaan arday ka mid ah ardayda kala jabin doonta waxaan leeyahay isku waxaaraam dhinac wada jiro in badan ma waxaan soo ahaa ama imtixaan ugu soo dhexjiray ardayo macallinka ku ilaaliya cadowgaaga maaha waa macallinkaagu wax kuu soo dhigay meel kale kamuu imanin adiguna beri baad macallin noqonaysaa ama macallimad noqonaysaa marka iskuulka la galo imtixaanada la ilaaliyo qof walba waxa marka imtixaanka lagu dhibaat ka shaqaysaa orda inta aad garanayso haddii kale inta qishtaydayso ayay ka taqaanana kaa baxaysaa aafada uu leeyahay qishku ardayda qishku wuxuu noqday aafo daran wuxuu noqday cudur wuxuu noqday khiyaamo waxaan idiin sheegayaa inaad qishka iska ilaalisaan waxay daaran tahay kulankeena maanta laba kelmadood baan ku odhanaya midna waa duco midna waa dardaaran marka koowaad ardayda waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ilaahay tala saarataan waalidkiina ka soo ducaysataan waqtigeeda inoo hadhayna aad wax xafiska xoogaysaan waxaan runtii adeer aan idiga dardaarayaa oo ubadkayga iyo idinka baan idigu dardaarayaa inaynaa waalidkii ka nixin oo looda waa tarbiibiya lagu haysta lagu garaacayo haddaad doonaysaan inaad imtixaan ka baastaan waalidkii ka ducaysta qofka waalidkii ka ducaysta ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kuma dhigo idinkan waxay baryayaa in ilaahay naga dhigo kuwa dhibcaha ugu sarreeya hela wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa gunaanadkii halkaasi ka hadlay waxa aanay la dardaarmeen ardayda sanadkan gali doonta imtixaanaadka shahaadiga waxa weeyaan kan waa imtixaan yar oo qofka lagu eegayo wixii aqoon ay ku jirta sidii gabayga yaraaye loo tiriyay aqoontaadu baa la eegayaa wax weyn oo sidaa u siiriga maaha anigu waxaan ku soo koobayaa wax weeye qishku sidiisaba waa cudur dawadiisuna tahay kalsooni waa cudur dawadiisu tahay kalsooni qofku yeesho oo uu isku kalsoonaado oo uu naftiisa ku kalsoonaado oo waalidku ilmihiisa ku kalsoonaado oo ardaygu macallinku ardaygiisa ku kalsoonaado oo maamuluhu ardaygiisa ku kalsoonaado
oo la isku wada kalsoonaado oo aad adigu isu kalsoonaatid oo wixii aad soo baratay ku kalsoonaatid ee aanad isku eegin inaad wax gashto oo aad imtixaankii intaad qishku soo diyaargarowdo aad halkaas zero keentid marka warqadda lagaa calamadiyo ama lagaa qaado aan waxba helin ee halkii aad wax ka heli lahayd oo aad wax fiican heli lahayd aad naftaada ku kalsoonaato oo naftaada ugu diyaargarowdo imtixaanka insha allahu waxaa ilaahay ka baryayaa in ilaahay dhammaantiinba idin guleeyo bulsho kasta ama qaran kasta waxa dib u dhigaa waa tayaqmada tacliinta oo qishku kow ka yahay waxa horumariyaana waa la dagaalanka qishka iyo tayeynta tacliinta qaran kasta iyo bulsho kastaba marka waxaan leeyahay ardayey sidaad u soo diyaargarowdeen maanta waxaa laydiiga baahan yahay diyaargarow ka xoog badan oo ah sidii aad u geli lahaydeen kaalmaha hore ee darajada imtixaanka gunaanadkii kulankani waxaa halkaasi su'aalo ardaydu ay ku weydiisay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka waxaanay soo qoreen su'aalihii ay doonayeen in ay weydiiyaan gudoomiyaha sidaasi kadalik ayaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax uu dhammaan uga jawaabay su'aalihii ardaydaasi ay soo qoreen dugsiyadooda iyo goobaha waxbarashada caanka laakiin kalsooni darro ku dhaco xilliga imtixaanka dhiiga keeno maxaa fursadii natiijada loo helo waan ii sheegay oo ardayda qaar baa naxa hablaha u badan oo naxa waxa weeye naxdintu way jirtaa laakiin mid baan sheegayaa waxaan ardayda dhacdo horta waa si fiican baan loo macaamilaa laba ardayga isagay ku xiran tahay hadduu ardaygaasi rigsaan u diyaargaroobo oo wax ka sii ahaayeen uu yidhaahdo rigsaan baan diyaar u ahayo imtixaankii dib baan u gelayaa waa laga qaadayaa ma garatay waxa kaloo jira ardayga yidhaahdaa waxaan samaynayaa kalaaska ha layga bedelo iskuulka iskuulkalaan tegayaana waan u fududaynaa oo yidhaha sanad dambaan sii dhiganayaa